mis weydiisay dalalka ugu awoodda badan dhinaca militariga ma ahan kaliya inta askari ee ay haystaan balse waa tiknoolajiyada hubka nuclear-ka iyo miisaaniyada ay ku bixiyaan difaaca. maanta fahamka nolosha wuxuu idin kashifayaa 5 dal ee dunida ugu hubka iyo awoodda badan. waxaanu kala sareysiin doonaa nabarka 5 ilaa nabarka 1 ilaa aan ka gaarno wadanka dunida ugu militariga awoodda badan waqti xaadirkan. wadanka kaalinta 5aad ku jira waa South Korea. ma ahan kaliya dal caan ku ah tiknoolajiyada rayidka ah balse waa mid ka mid ah quwadaha militariga ee ugu diyaarsan caalamka. sababta ugu weyn ee ay urursanayaan hubkan waa loolanka dhamaadka lahayn ee kala dhaxeeya waqooyiga. marka laga soo xigto warbixinada Global Firepower, dalkan wuxuu safka hore kaga jira dhinaca madaafiicda iskeed u socoto iyo taangiyada casriga ah. waxay haystaan in ka badan 600 oo kun oo askar oo heegan buuxa ku jira iyo 3 milyan oo keed ah. xigashooyinka militariga waxay sheegayaan in taangigooda K Black Panther uu yahay midka ugu qaalisan uguna tiknoolajiyada sareeya ee maanta dhulka yaala, isagoo awood u leh inuu iska difaaco gantaalada lidka taangiga ee casriga ah. saaxiib, haddii intaan la soo gaartay fadlan akoonka subscribe video like saar noona sii share garay mahadsanid. kaalinta 4aad waa dalka India. quwadda sii kordhaysa ee Aasiya. India waxay ku jirtaa kaalinta 4aad iyadoo ah dalka 2aad ee dunida ugu soo iibsashada badan hubka caalamiga sida lagu xusay warbixinta Stockholm International Peace Research Institute. India waxay miisaaniyad weyn ku bixisaa sidii u casriyeyn lahayd ciidankeeda cirka iyo badda. waxay haysataa mid ka mid ah nidaamyada gantaalada ugu qatarsan dunida ee loo yaqaano Agni-V, kaasoo ah gantaal qaaradaha isaga goosho xambaari kara madax nuclear. waxaa xogta la isku raacsan yahay ay tahay in India ay haysato in ka badan 4600 oo taangi iyo ciidan lugta ah oo ka kooban 1.4 milyan oo askari, taasoo ka dhigaysa gidaar aan la jabi karin oo ku yaala koonfurta Aasiya. wadanka kaalinta 3aad ku jira waa Shiinaha. warshada iyo quwadda cusub ee badda. Shiinuhu ayaa iska leh nabarka 3aad isagoo hadda haysta tirada ugu badan ee maraakiibta dagaalka dunida. 10 sano u dambeeyay Shiinuhu wuxuu si xawli ah u dhisayay maraakiib diyaaradaha xambaaray gujiso nuclear ah si uu xukumo badda South China Sea. sida ay sheegtay waaxda difaaca Mareykanka ee Pentagon, Shiinuhu ma ahan kaliya mid tiro badan balse wuxuu hadda ku dhex darayaa hubkiisa sirdoonka macmalka ah ee AI-da iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee raaca qaab raaca drone swarms. xogta la hubiyay waxay muujinaysaa in Shiinuhu haysto ciidanka lugta ugu ballaaran caalamka iyo miisaaniyada sanad kasta ku kordhaysa 7%. wadanka kaalinta 2aad ku jira waa Ruushka. boqorka nuclear-ka iyo taangiyada. Ruushka ayaa fadhiya kaalinta 2aad isagoo ah dalka haysta tirada ugu badan ee madax nuclear-ka dunida, kuwaas oo lagu qiyaasay in ka badan 5580 oo madax. Ruushku wuxuu dhaxlay awoodii weyneed ee Midowga Sofiyeeti, balse wuxuu ku daray hub cusub oo dunida cabsi geliyay. waxay hormuud u yihiin gantaalada xawaaraha dheereeya ee loo yaqaano hypersonic missiles sida Zircon iyo Avangard, kuwaas oo u socdo 10 jeer ka badan xawaaraha codka, iyadoo aan ilaa hadda la helin nidaam difaac ah oo joojin kara. sida xaqiijisay xogta militariga caalamka, Ruushku wuxuu haystaa tirada ugu badan ee taangiyada dunida isagoo haysta in ka badan 12500 oo taangi. wadanka kaalinta 1aad ku jira waa USA. hogaamiyaha tiknoolajiyada iyo miisaaniyada. ugu dambeyntii nabarka 1aad waxaa si muran leh u fadhiya Mareykanka. Mareykanku ma ahan kaliya dalka ugu hubka badan balse waa dalka ugu miisaaniyada badan, isagoo sanadkii 2024 ku qarash gareeyay difaaca lacag dhan 820 milyan. xogta la isku wada raacsan ayaa ah in Mareykanku leeyahay 11 markab oo diyaaradaha xambaara oo loo yaqaan super carriers. sidoo kale Mareykanku wuxuu haystaa diyaaradda F-35 Lightning II oo loo tixgeliyo inay tahay mid ugu sareyso tiknoolajiyada casriga ee hawada. xigashooyin badan ayaa sheegaya in Mareykanku awood u leeyahay inuu dagaal ka bilaabi karo meel kasta oo kamid ah dunida saacado gudahood. dunidu waxay galaysaa tartan cusub oo dhinaca hubka ah, kaasoo bedelaya dheelitirka awoodda caalamka. inkastoo hubkan loogu talagalay difaac iyo ka hortag dagaal weyn, haddana waxaa jirta cabsi laga qabo in hubkaasi la isticmaalo markasta. mis leedahay awoodda ciidanka Mareykanku waa loo dhawaan karaa 10 sano ee soo socota. fadlan noogu reeb fikirkaaga qaybta faalada. akoonka subscribe video like saar noona sii share garay mahadsanid.